Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso kusoo dhawaw Taleex Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo dayno. haddii aad horey inoola joogtayna fiideogan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada. kusoo dhawaw qaybtii 18aad ee sheekadii waa Suge iyo Warsame socdaalkii 30 maalmood. qaybta 17aad waxay inoo joogtay odayaashii waxay ku heshiiyeen inay toddobaad kadib isku arkaan beerta nasashada, sidaas ayayna iyagoo faraxsan ku kala tageen. qaybta 18aad waxay ku bilaabmaysaa toddobaad ayaa ka soo wareegay maalintii isku dambeysay waa Suge iyo Warsame. waxaa la soo gaaray waqtigii ay ballanka lahaayeen. dhibaatada ay maalintaas la kulmeen waxaa ugu weynaa in mid waliba in beerta nasashada ee magaaladu ay mid keliya tahay. oday walbana beer keliya ayuu bartay intuu magaalada joogay, taas ayuuna nin walba niyadda ku hayay marka ay ballamayeen. Warsame wuxuu goor casar ah ka soo kacay aqalkii walaalkiis Dirir oo uu ku yaala degmada Holwadaag, asagoo fulinaya ballanka ula lahay saaxiibkiis Suge. intuu jidka sii marayay wuxuu sii kala shandheynayay waxyaalihii uu magaalada ku arkay, kuwii ula yaabka badnaa. wuxuu isku sii aadinayay wuxuu ugu sheekayn lahaa waa Suge. Warsame wuxuu yimid beerta nasashada ee Dhagaxtuur. inta uusan fariisan waxa uu ku soo wareegay beerta afarteeda gees asagoo ka raadinaya waa Suge. markuu hubsaday inuusan saaxiibkiis weli imaan ayuu kursi dhagax ah iskaga fariisay. Warsame markii hore cabaar ayuu ka qoomameeyay kursiga laftiisa, kuna talamay in qof kasta iskaga fariisan karo iyo in kale, laakiin waxay ugu dhamaatay asagoo yiri la hubsan doone. markuu Warsame kursiga ku nagaaday ayuu niyadda ka faalooday asagoo la yaabsan dadka tirada badan oo inta qof waliba dhar wanaagsan soo xirtay, kili iyo koox isaga sheekaysanaya beerta dhexdeeda, fadhi iyo taagnaanba. Warsame wuxuu is yiri kuwaani waa dad howl la'aan hayso, wuxuuna aragoodii ku xasuustay gabaygii Ciga Baraar oo ahaa 70 loo faro suuqa wada jooga, oon soofka xoolaad lahayn, sir iyo caddaan toona, oon suud xiriiriya ka siman, saacadii gacanta oo siiga inay taabato, saxarka diidaya oo aan rubaadiga sarsaran, sinna ku waaweyn oo sidii tujaarta cadmeed sidata neegtayn. haddaan lacagta sidaan lagu heliyo sababta lay sheegin halay suga biri, saadaan baa qaar silsiladaynaya, walahu raggaan safirshaan socod ku dheeraynaye. in yar kadib waxaa Warsame kursigii kula soo fariistay oday reer magaal ah. salaan wanaagsan ayay isdhaafsadeen, magacyadoodana way isku sheegeen. odayga reer magaalka ah waxaa la yidhaahdaa Daafeer. sheeko caadi ah ayaa labadii oday u bilaabatay. ugu horrayntii Warsame ayaa Daafeer su'aal weydiiyey oo yidhi, waxaad iiga warantaa dadkan iska wada ladan oo subax iyo galabta maashaadaya, haddana ila ah dad aan xoolo lahayn ama aanan dhaqan, xoogsina u kalahin, halkee wax ka soo galaan? intuu Warsame hadlayay Daafeer lama socon, maxaa yeelay wuxuu ku howlanaa oo ka daba indha taagayay gabar ladan oo odayaasha soo agmartay. markii jawaabtii laga sugayayna inta uu Warsame garabkii jug ka siiyey ayuu yidhi, ishcalaa fatamiin. Warsame si weyn ayuu ula yaabay waxyaalaha uu ku kacayo ninkaas odayga ah, wuxuuna damcay inuu u jeediyo hadal waano ah, laakiin wuxuu haddana xasuustay mahmaahyadii ahayd in camalkiisa laga waanshay waa dudumo ciid laga meeray. markii gabadhii dahasuuntay ayuu Daafeer u soo jeestay Warsame oo yidhi, iga raali noqo, maxaad i weydiisay? cabaar ayuu Warsame wuxuuna aad u sulugay odaynimada Daafeer. inkastoo oo ka wada shaki reer magaalka oo dhan, galabtaas wuxuu Warsame xaqiiqsaday inuu run ahaa buraamurkii ay islaantii gabadheeda ku waanisay oo ahaa duqowda magaalooyinka qaar waa dad loo faraa da'dooda ma fiiriyaan, hadday dumar arkaan sidii dugaag xoolo helay bay u dabagalaan, diintu waxay diiday bay saani ugu dalbadaan, digtoonaaw caasho dunida waa dareen socdee. markay intaasi dhacday ayuu Warsame wuxuu Daafeer weydiiyey su'aal ku saabsan noloshiisa magaalo, gaar ahaan shaqadiisii hadduu carruur leeyahay. Daafeer wuxuu Warsame u sheegay inuusan shaqo iyo carruur midna lahayn, laakiin oo qabo naag shaqayso lana yiraa Faadumo Cad. wuxuu kaloo u sheegay inay tahay naag markaan gabowday rag badanna soo guursatay, weligeedna aan waxba dhalin. Warsame wuxuu Daafeer kula taliyey inuu naag da'yar ah iska guursado, laakiin wuxuu ugu jawaabay inaysan guur iyo furiin intaba ka suurtagalayn. maxaa yeelay ayuu yidhi, Faadumo waa naag shaqaysa, aadna ugu fikirta nafteyda, inkastoo aan carruur laga sugayn. waxaa intaa ii dheer malihi xoolo aan gabar yar ku guursado.
intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 18aad ee sheekadii waa Suga iyo Warsame socdaalkii 30 maalmood.